بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي قيمها يقايها بدن له igala socoto bartan aan youtube-ka ku leeyahay ee shukri muuse talenti channel waxaan idin leeyahay meel walbo aad joogtaan iyo xilli walbo ay idin tahay waqtigu ha idin wacnaado asxaabey mar kale iyo waa walaashin shukri degan oo idin wada barnaamij cusub barnaamijkan cusub asxaabey waxaan ka rabaa inaan idin kaga sheekeeyo qiso dhab ah oo dhacday oo ka dhacday dalkan aan hadda ku noolahay ee Uganda magaalo madaxdiisa Kampala qisadaas oo runtii adduunyada horta waxaan dhici karin ma jiraan laakiinse wax lala yaabo dhanna wax lala yaabo ka ah oo aan waxaan alaaba ku badnayn dadka Soomaalida dhexdooda ah ayaan rabaa asxaabay inaan idin la wadaago haddii Ilaahayga awoodda sare leh uu ogolaado insha Allah taala qisada intaanan bilaabin asxaabay sidii aan horaba idin xusuusin jiray waxaan idin xusuusinayaa channelkan inaad subscribe-ka ii saartaan intiina hadda aan wada joogno halkaas igala socotaana waxaan idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan iyo waji furan inta dib nooga soo biiri doontana sidoo kale soo dhawaada gacmo furan iyo waji furan ayaan asxaabay idin leeyahay marka saacidaadda Soomaaliyeed anagu is saacidno mooyaane cid kale oo cirka ka soo dhacdo na saacidaysa ma jirto in anagu is saacidno isbarbar istaagnaana waajib waaye marka walaalayaalow waxaan idin leeyahay subscribe-ka hala saaro channelka si uu hore ugu socdo uu heer fiican u gaaro insha Allah taala halkaan oo aan channelkan sida aad wada ogtihiin intiina ila socotay aan arrimaha bulshada uga hadalno haddii Ilaahay yiraahdo si uu channelku sare ugu kaco haddii alla yiraahdo waxaan rabaa marka inaan sheekadii aan rabay inaan idin la wadaago asxaabay aan idin bilaabo asxaabay waxa isguursaday wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo ilmaha bareed ah ayaa waxa meherkoodii laga sameeyay dalkeeni hooyo Soomaaliya gabadhu Soomaaliya joogtay wiilkuna dibaddu jire waxa dhacday markay muddo dhowr bilooda ay isku mehersanaayeen in la yiri wiilkii ayaa imanaya oo raba gabadha inuu la aqal galo layna u xareeyo meesha uu joogo si uu u geeyo sidaa daraadeed gabadhii ayaa laga keenay dalkeedii hooyo waxa la keenay magaaladan aan joognay Kampala ee dalka Uganda waxa loo keenayna waa aroos meherkii halkaas laga sameeyay si wiilkii intuu yimaado uu ula aqal galo markii halkaan la keenay aroos yar baa loo sameeyay xaflad yar baa loo sameeyay macnaha arooska xoogiisii waxa lagu sameeyay Soomaaliya gabadha reerkeeda sameysteen laakiin halkaan waxa kaliya laga rabay in yar xaflad yar oo taashkii iyo wixii ay ka muuqdaan si processka loogu xareynayo maadaama ayna markii hore isla joogin markii arooska loogu dhigay Soomaaliya hadda ayagoo wada jir asawirro iskula jiraan ayaa la rabay arooskii yaray baa loo sameeyay guri yar oo guest house ha loo creeyay waa la dejiyay wiilkii iyo gabadhii halkaas ayaa arooskoodii aqalgalkoodii ka bilowday oo ay 7 ku galeen waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo anoo sheekadana sii wadaya guurku inuunan xigsiina lahayn inuuna lahayn ilmo adeer inuuna lahayn ilmo habreed inuuna lahayn dad ehel isu ah ee uu yahay kii alla ka siiyo cidii alla ka siiso fiican alla ka siiyo fiican Allah kugu toosiyo inay tahay waxa dhacday gabadhii oo 7 ku jirta oo aan 7 maalmoodba u dhamaanin ayaa wiilkii gabadhii isku dhaceen sida la sheegay kor u soo baxday waa dad isqaba ee reerahooduna ay ehel yihiin labadooda hooyo wada dhasheen haddana dhufaysi ku kala jira oo mid walba midka kale inuu iska ataago iska macnaha uu weeraro raba kan kalena inuu guntiga dhiisha isaga dhigo oo weerarkan iska difaaca u rabo waxa dhacday sida la sheegay oo sheekadu ay nagu soo gaartay
horta waxa laba qofood ee meel wada degan dhex maray annagu waxaan ka ogaan karnaa intii banaanka u soo baxday xaqiiqda ee dhabta jirtana kulley ayaga iyo ilaahay unbaa is og mana rabo inaan dhinac xigsado laakiin waa qiso dhabahoo dhacday dadkii ay ku dhacdana aan ogeyn oo arooska xataa aan wax ka qaban qaabinay maxay ahaydtay waxa dhacday in sida la sheegayo wiilka reerkiisu ay gabadha reerkeeda ku eedeeyeen inay gabadhu ay dad la dhashay dhaqaale rabaan macnaha shuhmisaasaa jiray wax kor u soo baxay oo xaqiiqo ah ma aha laakiin waxaa jira dhufays intaas looga jiray in dhaqaale wiilkan maadaama uu dibadda ka yimid la weydiisto in laga baqayo qaasatan hooyadiis ay dhufaystaas uga jirtay oo gabadhana habaryar u ah kolley wiilkeedu waxay u sheegi karto iyo wixii ay istiri weerarka kugu soo socda jilibka u dhig iskaga difaac kolley u sheegtay oo waa dad isdhalay ku wada hadleen laakiin inta caamka ah ee la og yahay gabadhi iyo wiilkii waxoogoo isfahmi waa ah raalli iga ahaada ayaa soo kala dhex galay isfahmi waagii soo kala dhex galay wuxuu dhaliyey in akhiiran wiilkii iyo gabadhii ay ka wada sheekaystaan aayaha noloshooda iyo guurkan ay isku darsadeen maadaama asaga uu tagaayo ku laabanayo dalkii uu ka yimiday gabadhu ay ku tiri aniga dadkan aan hadda la deganahay ma rabo inaan la deganaado waxaan rabaa inaan gooni u dego waxaan rabaa inaad gooni guri iigu yeesho anigu aan u taliyo oo aniga ii gooni ah biilkana halkaas iigu soo dirto asaguna uu ku yiri dadkan ehelka ah ee aad isla joogtaan ee walaalaha wada tihiin oo qaar iyada la dhasheen oo qaar kale maaragtay abtigeed dhalay oo adigu un dad saasoo isu wada yimid ay yihiin laakiin ehel wada ah ayaad sidooda ula deganaanaysaa iyaduna way diiday isfahmi waabaa dhex maray labadooda isfahmi waagi markuu dhex maray bay gabadhii waxay ku tiri isagii horta dhufayskiisiyu adkaysto wuxuu ku yiri aniga haddaad imoodayso gabarey inaan dhaqaalo haysto dhaqaalo ma haysto intan hadda lagu sameeyey arooska lagu dhigay rabrabta iyo dhoofkan lagu soo dhoofiyo dalkii lagaa keenay halkan lagu keenay aniga halkan aan imidna hooyadeeyaan intaasoo qarasho qabtay anigu arday baan ahay iskuul baan dhigtaa haddaan dugsiga sare ka baxaya kadibna jaamacad ayaan u gudbayaa intaasna waxaan doonayaa inaad halkan ii joogto hooyadayna ay sidaan hadda ay kuusoo bisho gabadhiina waxay tiri baa layidhi aniga markii hore bay iyadu waxay moodaysa inuu isagu shaqeeyo siday iyadu ay sheegtay oo afkeeda ka cadaysay waxay tiri wuxuu hore iigu yiri 2 shaqaan ka shaqeeya haddana sheekadii way isbedeshay waxay ku tiri niyo aniga reerkiina ima soo biilayo adaana iqaba ama sidii gabar loo qabi jiray iqab oo noloshayda iyo aayahayga iyo maxaa la dhihi jiray biilkayga iyo kiradayda iyo waxayga adigu qab ama haddaa tahay ninaan waxbaba ku toorayn iska kaydaa oo nagu kala wad wuxuu ku yiri na adigu moodan dhoof rabin oodan dibad rabin waxay tiri dibad maxaan ku samaynayaa dibad meeshii lagu sugaayaba sidaan tahay maxaaba ii gaarayaba anigu war dibadaad sheegaysana ma rabnee ama hadda toos gabar la qaba aanu ahaado ama gabar la furay aan ahaado hadalkii markuu ka dheeraaday ayay gabadhii waxay iska soo jartay waxay ku tiri intay xanaaqday waxay tiri niyo wadaad sidaan tahay wuxuu yiri marka walaashay aniga iga weyn baa ku biilinaysa oo biilka kuu soo diraysa kirada gurigana sida hadda hooyaday usoo diraysaa gabdhahaas hadda la deganaanaysa hadda la degantay haddaa anigu tago way diiday waxay tiri anigu walaal adiga kula dhalatay ima qabto mana ibiilinayso haddaad ninkii qabay tahay adaa ibiilin doona waxaan u baahdo iyo baahideedoo dhanna kafaalo qaadi doona haddaynan ahaynna adaa iska dayn doona oo madaxaygaad siin doontaa waana 7 maalmood ay ku jiraan wuxuu yiri warka markuu ka dheeraaday bay gabadhii waxay ku soo afgoysay niyo anigu meher baan kugu leeyahay siday sheegtana waxaan ku mehersanaa bay tiri lacag xoog leh $2,000 waxay tiri lacagtii aan ku mehersanaa meherkaygii aad aniga igu banaysatay haddana aan adigu is aragnoon aqal galnay ayaa kugu waajibo waan kaa raba
meherkaygii baad isiinaysaa haddaad ibiilan karto waad ibiilinaysaa waa kuu joogayaa halkan haddaadan ibiilin karno saad ku hadlaysa sheekadu ay tahay soo maha nagu kala wad meherkayganaysii ninkii shibuu yiri jiifkiisii uu gadaal u galay qolkii hurdada islaantii hooyadiiseedoo wacay xaaladiibu hoos ugu sheegay iyaduna qol kale gurigu laba qol u ahaa qurfadii kale gashay qolkii kale xaaladiibu hoos uga sheegay waxaa la wacay gabar iyo wiil la dhashay iyadoo joogay xaafadda iyo nin abti ahaa iyo adiga uun dad uun ehel ahaa intii gurigii iyada ay sii deganayd oo laga soo guursaday oo isla magaaladan ahaa oo dadka maaragtay ay wada ehelka ahaayeen ay deganaayeen waxaa la yiri gabadhii wiilkii way isdagaalsan yihiin gabadhiina wiilkii bay rabtaa inay disho midi bay ku haysaa islaantii baa la hadlaysa wiilka hooyadiis ahayd ee gabadha wiilka laga badbaadiyo reerkii oo kale ordaya soo carar gabadhii haddii loo soo garaaco loo yimid albaabkii fureen waxay tiri waaba yaaba markii la yiri ninkaan dilaysaa in anigaba iga xoog badan oo aan maaragtay labadayda gacmoodba hal gacan isugu qaban kara yaa la yiri waa dilaysaa wardilkan ma jirin xagee waxaan laga keenay sheekadii oo dhan la rogo markii la yiri gabadhii ay meherkeediiba soo hadal qaaday 7 ay ku jirto baa islaantii asaga la dhashay asaga dhashay bay aqli keentay in sidaaba lagu kala tago mar haddii meher la rabo inaan gabadhan meher la siinin ayadaa filinka wadata dhaqaalay rabeen dadka la dhashaa dhaqaale rabay ayadaa dhaqaale codsatay wixii haddii la diidana hallay furay keentay sidaas daraaddeed meher ba naguma laha bay yidhahdeen iyo sheeko kaloo badan oo aanan anigu afkayga karin oo gabadhii laga sheego lagu ajaafeeyey oo iyada cirdigeeda maaragtay wax looga sheegay baa la yiri isugu marqaati kaceen islaantii wiilka dhashay iyo wiilkiiba gabadhii way xanaaqday xisbayallah wa nicmal wakiilay tiri ilaahay baan kaa magan galabay tiri gabadhu waa gabar yar af Soomaaliga garam ku aan dalkii ku dhalan oo qurba ku dhalatay way carartay gurigii laga soo guursado walaalaheed iyo wixii joogeen bay tiri aniga bas waa ninkan lama joogaa duusan yahay way baxdo gurigii bay tagtay maalintii isla habeenkii ay meesha guriga ka tagtay ay gurigeedii tagtay markiiba ay guriga tagtay inay subaxaydin habeen ahayd astaghfirullah ma xasuustee ay gurigii ay laga soo guursaday ee walaalaheed iyo ehelka kaleba ay deganaayeen ay tagtay ayay reerkiina qorshe degeen gabar waxaa jirta ayaga la deganayd oo guriga gabdhuhu isla deganaayeen ehelka oo abtigood dhalay gabadhii baa la rabaa in gabadhan lagu jabiyo oo wiilkii la siiyo maadaama uu aroos u yimid arooskiina saan xaaladiisa noqotay in wax la dhexdhexaadiyo laguma talagelin waana wada ehel laba wiilkay gabadha isguursaday waa ilmaha breed gabadhan kale guriga joogtay la rabo in gabadha maxay ahayd wiilka haddana lagu daro oo tan guurkeedii wixeeda laga tala baxana waxa dhalay waa ilma abtiil meedo gabadhaana abtigeed baa dhalay wiilkana abtigiis baa dhalay ma garateen waa wax ii dhinnaay waa dad iswada leh haddana saas u dhaqmay isla markiiba hoostaa laga heshiiyey gabadhii baa la yidhi nayaa ninka adigu ma rabtaa tii abtigu dhalay ninkaa ma rabtaa ninkan guura meesha loo keena haddii gabadhan iska kibrisana wiilkaygu naag la-aan noqon maayo adaa lagugu dariyo eedda ma rabtaa islaantii eedadeed aheedoo wiilka dhashay intay soo hadashay maalinkii dambe wiilkii ninkii abtiga ahaa la cararay kenyuu geeyey maalin labaadkiina gabadhiyaa lala cararay abtiga kale u dhalay oo wiilka ina abtiina eedada ay yihiin gabadhan hadda wiilka uu qabayna ina abtiina eedda ay yihiin kenya la isugu geeyey gabadhiina bartaana looga tegey ayadoon kira haysan oon biil haysan oo waxba haysan madaxeedina haysan waxaana haysanin maxaa la dhihi jiray meherkeedina haysan weliba waxa loogu daray guriga ninkii lahaabaa ku wareegaya ka baxa guriga dad ka bixi weysiinna idinkaas ka bixinaysiin kirada kaasa iyagoo carar waxa ku dareenay xaafadaha soo kala galeen gabadhi iyo laba la dhalatay oo la joogtay gabadhi kale abtigu dhalayna Nairobi loo qaaday wiilkiina waa ka sii horeeyay halkaas iyaga la iskula mehriyay aroosna loogu sameeyay waa laba kale haddana oo ilma abti ilma eeda gabadhan wiilku uu qabay lagala cararayna iyo wiilkuna ilmaha breed waay gabadha kale haddana lagu daray labada gabdhood ninku isla guursadayna midna ilmaha breed bay yihiin midna ina abtiina eeda yihiin labada gabdhood waa ina abtiina eedo
soomaali maxamed bal waxa laga taliyey oo qoysaska ehelka isu ah ay ka taliyeen waa waxaan hore u maqlin kolley hadday jiraanna waa naadir iyo dhif waa dhif iyo naadir la isku dar gabadh iyo wiilkii kale nairobi la iskula dar aroos loo dhig halkii joog dhowr bilood ku qaaday dabeetana isaga noqoy dalkii uu ka yimiday gabadhii hore xamar laga keenay ee halkaas lagu mehriyey ee ilmahabreedda ay ahaayeen weli kambaalay joogtaa mana furna mana dhaqna ninkiina intuu gabar kaleeto oo ina abti ay yihiin la aqal galay iyo gabadhaanna ina abti yihiin isagana ina abti yihiin la aqal galay ayuu alxaasil yaanan idin daalinayna laba gabdhood oo labada gabdhoodna ay ina abtina eedda yihiin asagana ay midna ilmahabreed yihiin midna ina abtina eedda yihiin buu ninkii isu maray hal safar kaliya u yimiday buu labadoodiiba la aqal galay labadoodiinaba wada mehersaday uu wada qabaa tii kale kenya looga tegey tanna halkaana looga tegey asagana dalkiisii ku noqday taas maybe hadda weli wayba iswadwadaan oo way isfahamsan yihiin laakiin tii dal soomaaliya laga keenay halkan la keenee iyada darteed uu u yimiday markii hore mana furna mana dhaqna meherna lama siin lamana raalli garayn lamana fasixin xaaladeedu waa bariga dhexe xaaladeedu waa bariga dhexe halkanay joogtaa halkanay iyaday laba walaalaheeda isla joogaan halkanay nolosha wada dhacsadaan halkanay shaqooyin yaryar ka wada shaqaystaan ay nolosha ku wada dhacsadaan waxaan marka sheekada qisadaas waa dhab way dhacday waana aqaanaa dadka ay ku dhacday khaasatan labada gabdhood ee ninku isu dhaafay labadaba si fiican aan isu naqaanaa ma garat waxaan ku leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ayaga is jabinaya gabadhan maxay ahaday ayuu sidan yeelay tii kale alla mahadiinaysatay calashaan dhoof daraadiisa adigu aad ku dhooftid aday tani ka faa'iideysan weyda wax la'aanta iyo maxaa la dhihi jiray povertyga gabdhaheennii raqiis buu ka dhigay inay hal wiil oo kaliya laba gabdhood oo walaala ah uu isu dhaafo oo taas hadda dambaysana ay u aragta jaanis ay tani iska beer daraysay ayaan gaarsiisanahay Soomaaliyeed haddaan alla laga baqin oon alla loo noqon oo waalidka dadkan waalidka u wada ahay gabadh islaam maxay aday marba wiilkeedii marba gabar sidii orgay lagu soo dhexdeeyay xira maxaa la dhihi jiray ari ku jiro mid uu rabo maaragtay iska orgaya oo kale in laba gabdhood oo isla dhalatay isaguna oo walaalkood kale yahay loo wada dhaafiyo hal wiil ee la isku jabiyay ayaga Allah ilaahay waa ayaan darro guurka Soomaaliyeed u soo hoyatay waana ayaan darro gabdhaha Soomaaliyeed u soo hoyatay waxaasna waalid baa ka shaqeeyay magac waalid leh waxaan rabaa gabdhaheenu inay noqdaan gabdha adag oo aan loogaga faa'iideysanin povertyga ama wax la'aanta haddaana wax la'aanta looga faa'iideysanin laba gabdhood oo walaalo ah oo ina abti ina eedda hal wiil ma wada mareen laakiin waxaa keenay nabad la'aanta iyo shaqo la'aanta iyo wax la'aanta Soomaalideen aan maaragtay ku wada dhex jirno Allah naga saaro dhibaatada waalidkii inta sameeyay xaqa Allah garansiyo gabadhan maskiinada inay dhaqaan ama ay furaanna Allah ku soo hadeeyo insha Allah ta'ala waa cibri qaadasho wax lagu cibri qaato in wiilkan waxba ayna ka halaabin oo maalinba gabar loo soo xareeyo gabdhihii labada gabdhoodna la isku jabiyo dadkuna isla wada dhashay hal qoys isla wada yihiin Allah ilaahay waa ayaan darro Allah ilaahay waa ayaan darro ilaaha daa'inka ah xaq asaga ka daminahe intii xaq gashayna xaqa ha tuso oo kuwa ka soo noqda qaladkoodii Allah ka dhigo inta xaq laga galayna xaqoodii Allah u soo iftiiniyo intaas ayaan rabay inaan idin la wadaago asxaabteydii qaaliga ahayday qisadaas dhabta ah runtii xanuunka badan oo anigana aad ii xanuujisay maadaama aan aniguna haweenahay gabarna aan leeyahay maxay ahaday hooyo Soomaaliyeedna aan ahay aad iyo aad ayaan uga xumahay dadkii intaas ka taliyay aad ayaan uga xumahay waana filayaa ilaahay idinkiis in xaqu daalici doono
uu soo bixi doono xaqdaraduna ay guul daraysan doonto insha allahu tacaala halkaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkeennii aan idinkugu talagalay qisadaas aan idinla wadaagaya saxaabey tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh